inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. warkani ma aha war urur dhagaha ummadda Soomaaliyeed. war degdeg ah ayaa sheegaya taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo qarax miin ah oo ka dhacay laba buundaale ku geeriyooday. warkan degdega ah ayaa soo dhacay saacadii ugu dambeysay. Allah u naxariistay Generaal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ahaa sarkaal daayar oo howlna furnimo u hayay qaranka ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna hadda ahaa taliyihii qaybta guud ee gobolka booliska gobolka Banaadir. wuxuu sidoo kale hore u soo noqday taliyihii gaarka ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo ka tirsan booliska Soomaaliyeed, si gaarna ahna ugu tababarnaa la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Farxaan wuxuu muddadii uu qaranka u adeegayay qabtay howlgal baaxad weyn oo lagu baacsanayay kooxdaasi Al-Shabaab, isagoo dhowr jeer ka qabtay xoreynta iyo isdifaaca goobay Al-Shabaab weerareen. maanta ayay xag alle ku qorneyd inuu Generaal Farxaan Maxamuud Qaroole ku geeriyoodo bartaasi gobolka Shabeellaha Dhexe oo qarax miina ah kooxda Al-Shabaab ay dhulka ugu aaseen la kacay isaga iyo qaar ka mid ah istaafkiisa oo la sheegay inay meesha ku geeriyoodeen. arrintan ayaa fajacay ama ka ku dhex abuurtay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Muqdisho iyo booliska Soomaaliyeedba, maadaama Farxaan uu ahaa askari daayar ama taliye daayar oo in badan ay bulshada aad u jecleed soona caanbaxay xilligii dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ahaa taliye firfircoon oo ka howlgali jiray dhammaan howlgallada loo diro, islamarkaana qaban jiray howlgallada ka cabsadaan saraakiisha kale. maanta ayuu geeriyooday Farxaan, waxaana Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowso ka waraabo. fadlan daawade waxaa ka codsanaynaa muuqaalkan sii sheer garayso si walaalkeen taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo maanta geeriyooday aan ugu wada duceyno, islamarkaana dad aad u fara badan uu gaaro si ducadaasi looga qayb qaato, maadaama uu ahaa taliye naftii hore ah oo u shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed. taliyaasha hogaamada meeshaan waa warba lagu siisay shaqada qayb guud biliiska qofka booliiska qayb ka qaatay aan u horeeyaan taliyaasha hogaamada fadhiyada axbaran hadda ka xusno daraawiishta RRT jag CAD Haramcad qaybaha saldhigyada dhammaantiin waa qof walba meel soo gaarsiiyey oo la taaban karo. inta dhammaan ilaahay wadada ku rajeynaa wixii midka badnaa rafaadka badan soo waxay waxa haray oo inta dambaysa magaalada bulshada ka dhacday sagaalada bisha loo kulaatak ilaa intaas waa la deegaan qoraalka roobka inta ku dhacaysay saraakiisha booliska askarta ugu hooseyso qontiyada cadaasan shaqada u baahan oo qabto magaalada oo laga soo galo habeenii maalin qoraxda